subscribe, like, comment waa dhiirigelinteeda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan islaamaha Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogtaan. maanta qisada Faadimo aan dhageystay maasha Allah wallahi aad bay cajab gelisay. horta ma soo koobi karo wixii dhan wada lama bixi karo, laakiin wax yar ayaan rabaa inaan la wadaago. maasha Allah, Faadimo gabadhii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo dhalay, gabadhu ilmaha ugu jeclaay. maasha Allah, Allahu akbar. sharaf iyo ciise waxa ugu filanba inuu xabiibkeena Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam oo adduunkan koonkiisa dhan loo soo diray inuu aabo u yahay. adduunkaaba sharaftaas ugu filan. mid kale oo haddana Khadiija ay dhashay. Allahu akbar, Allahu akbar. ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofku fadli dheeraad la dooran waa sidaan oo kale. oo haddana waxaa guursaday Faadimo Ali Abi Talib ayaa guursaday. hadda ka hor waxaa dhacday Ali Abi Talib inuu gabar kale iyo xaas kale inuu la guursado. damcay qisadan markay akhrisanayaan ka dhageysanaya ku jirtay. markii gabar kale nin gaal dhalay oo wajaha la dhahayo dabcan inuu guursado, Faadimo xariisanaya rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ku tiri Ali Abi Talib inuu guursado gabadhaas oo rabaa Nabi Muhammad. markaas gabadhiisii la safto Nabi xitaa asxaabta ku dhahay nabiyo lama safa jirin gabdhahaaga iyo ilmahaaga maxaa dhacay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri ninkaas gaalka ah ilmaha oo u noqonayo anigan ilmahan u noqonayo ilaa ilmihii oo Cali dhalo asiga u yahay ilmihii kalan ninkan kale oo ilaa Cali isna ilmi dhalo u yahay. marka wuxuu nin gaal ilmo u noqonayo islama macquul ma noqonayso kufaarkaas. marka saas oo ku diiday badanana haweenka yar oo maseerka badan oo ugu jiro waxay iska dhahaan rasuulku Faadimo u diiday in la guursado. marka xaaladdu sidaas ma aan horta waa sidaan oo gaalkaas ay u diiday ma hadduu gabar muslimada kale Ali u guursalahay ma u diideen oo uu ogolaalahay. Nabi sallallahu calayhi wasallam asaga in xaasas badan qabay. xaasaskan hadda alxamdulillah afar ilaah u baneeyo nabiguna kuma hor imaadin, laakiin gaalkaas Abu Jahl wuxuu dhalay ayuu diidanay inay farax ku soo yeeshaan. alxamdulillah harta badanaa waxaa meelaha qaar Faadimo la sheegaa in Cali u dhashay 6 caruur waa la sheegaa, 5 caruur waa la sheegaa. marka horta waxa ugu horeeyay waa Xasan, mar walba magaciisa waa la maqlaa, iyo Xuseen. Xasan iyo Xuseen waa dhalinyaradii Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam oo yiri waxa loogu bishaareeyay inay noqon doonaan dhalinyarada madaxda dhalinyarada jannada galaysa ay madax u noqonayaan. maasha Allah maxaa ka fadli badan ayay madax u noqonayaan oo yiri. Faadimo laftigeeda waxaa la waxay eedo laftigeeda madax iyo inta markii laga reebo Maryama markii laga reebo waxay tahay eedo laftigeeda haweenka jannada galaya ayay madax ka tahay. Allahu akbar. ilaahay fadli dheeraad dadka la damco waa iska noocan camal. marka ilmaha ay dhashay Faadimo waa Xasan ugu horeeyay, Nabi Muhammad asaga u bixiyay, Xuseen asaga u bixiyay, Muxsin ayaa ku xigay, Kaltuum, Zaynab, Ruqayyana meel kale way dhigaan in gabar kale ku jirtay, laakiin kulli shantaas ay hadda xawda badan saas xoga la xaqiijiya 6na waa la sheegaa. marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu fadligii iyo darajadii haweenkaas islaamka la gaarsiiyo kale inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu daro inaan noqono haween oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xiran mar walbana oon shaydaanku uusan naga khaalib noqon. alxamdulillah. marka intaas ayaan rabin in la wadaago. haddaad hore u taqaanay alxamdulillah rabbil caalamiin, haddaad hore aqoonina hadda baro asxaabtaadana la wadaag insha Allah. faalana ka bixi rukumo insha Allah ta'ala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.